kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad daafaha dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad oo xiliyadan oo kale aad daawataan waa 7 bisha November 2018 maalmo Arbaca barnaamijka intiisa badan waxaanu ku falanqeyn doonaa iscasilaada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo si rasmi ah galabta ugu dhawaaqay inuu iska casilay xilka madaxweynaha maamulkaas isla markaana uu ka tanaasulay musharaxnimadiisii markaan oo wal mushkila iyo wal qasab injarna xilkaani ku tanaasuli sidoo kale waxa isna daqiiqada kadib iscasilaada Shariif Xasan ku dhawaaqay inuu isna casilay afayeenkii golaha iskaashiga maamul goboleedka Cabdullaahi Sheekh Xasan barnaamijka ay ku daawan doontaan daawadayaal qodobada kale ee barnaamijka ku jira waxa kamid ah madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe waxa uu shir looga hadlayo amniga maamul goboleedka maanta ka furay magaalada Kismaayo iyo Imaaraadka Carabta oo shaaciye xilliga oo sida rasmiga u furayo saldhigga military oo ka dhisanayo magaalada Berbera qodobadaas aynu ku soo qaadan doonaa barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad u diyaar garooba daawadayaal ku soo dhawow Dilaal abka Dilaal waxa uu ka caawinayaa inaad wax iska iibiso ama aad iibsato adigoo gurigaaga jooga si fudud isaga iibi geli sawirka shayga aad iibinayso geli faahfaahinta shayga aad iibsanayso ku dhufo post la hadal iibsadaha ama iibiyaha adigoo isticmaalaya qaybta wada hadalka lana wadaag sawirro iyo locationka ka dejiso abka Dilaal Google Play Store markale kuna wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan aynu ku bilaabno barnaamijka galabta waxa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay uga dhawaaqay inuu si rasmi ah isku casilay madaxweynaha maamulkaas Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaana uu sidoo kale ka tanaasulay musharaxnimadiisii inuu u tartamo xilka madaxweynaha ee maamulkaas haddaba wararkii ugu dambeeyay ee iscasilaada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo xiisadda maamulkaas ee maalmahan jirtayba waxa isha ku hayay wariyahayaga Cabdullaahi Axnuur oo soo koobaya waad mahadsantahay saaxiib magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed wararka naga soo gaaray waxa ay sheegayaan in Shariif Xasan Sheekh Aadan uu ugu dambeyntii xilkii madaxtinimada ee maamulka Koonfur Galbeed uu iska casilay kadib markii cadaadis xoogan ugu yimid dhinaca dawladda dhexe ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sidoo kale cadeeyay inuu ka haray tartankii doorashada madaxweynenimo ee maamulka Koonfur Galbeed kadib markii uu sidoo kale tilmaamay in cadaadiskan uu aqbalay codsiyada dhinacyada badan uga yimid waxaana arintan uu goor dhaweed uga dhawaaqay madaxtooyada Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo markaan oo wal mushkila iyo wal qasab injarna xilkaani ku tanaasuli raallon oo madaxweynaha gobolka gudoomiyaha baarlamaanka xilka la wareego oo si sharci ah la wareegana sida war-saxaafadeedka la sheegay xildhibaanada iyo wasiirada wali ku codsaday inay aan la shaqeeyaan sidanka fayl taasoo dawladnimada xarig jiid way walna isdhiiba dawladnimada taasoo waliba jeelay inay fayl la shaqeeyaan tan kaleeday moojidin isjiidkii dawladda federaalka iyo maamul goboleedka aan hogaamiyay isjiidka jari waqtiga musharaxnimada ku hor wali kalifay barlamaanka sida sharafta lahayn la shaqeeyo waqtiga dheer hawada shaqeynay haddii intii la qaado xamar la jeeyo iyo xamar la ka tashkiiliyo ana la oowada madiyo ogolaadeen yaani ogolaaday inaan isku tanaasul sababtana ka tanaasuli oo aan tanaasuli 7 tartankii hay aan ku tanaasuli taasasoo saacadihii ugu dambeeyay waxa aad loo hadalhayay iscasilaada Shariif Xasan Sheekh Aadan kana tanaasulayo tartanka doorashada madaxweynenimada iyadoo xilka madaxweynenimo uu si kumeel gaar waa xilka madaxweynenimo ee Koonfur Galbeed uu si kumeel gaar u sii hay doono gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Cabdiqaadir Shariif Sheekuna Maye arrintan ayaa ka dambeysay la baaleeyahay markii kulan muddo qaatay oo magaalada Baydhabo kula yeeshay wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo wararka qaar ay sheegayaan in uu jiray is-afgarad hoose oo dhinacyadan ay markaa ka gaareen arrintan lama oga in Shariif Xasan siyaasadda uu ka fariisan doono iyo in kale laakiin tan waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee Shariif Xasan Sheekh Aadan looga guuleysto dagaal siyaasadeed oo uu galo tan iyo intii uu siyaasadda ku soo biiray sanadkii 2004 oo si lama filaan ah loogu doortay gudoomiyihii baarlamaanka kumeel gaarka waa baarlamaanka dawladda kumeel gaarka ee Soomaaliya
shariif wuxuu dagaal siyaasadeed la galay madaxweynihii hore marxuum cabdulaahi yuusuf axmed isagoo oo kala jebiyey baarlamaankii dalka. sidoo kale waxa uu ka mid noqday dowladii midnimo qaran ee madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed, laakiin waxa ay ku kala tageen khilaafkii keenay heshiiskii Kampala ee xilka looga qaaday ra-iisul wasaaraha waa ra-iisul wasaarihii Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo sanadkii 2011. haddana Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. shariifka oo sidoo kale hormuud u ahaa madaxda maamul goboleedyada ee sida weyn u mucaaradaya dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa hadda u muuqda in looga adkaaday dagaalkaas, isaga oo si rasmiya u sheegay in uu iska casilay oo uusan mar kale madaxweynenimada doorashada uusan isku soo sharixi doonin. arrintan waxay ku soo aaday kadib markii ay guddigii doorashada maamulka koonfur galbeed ay casileen oo ay sheegeen in aysan haba yaraatee wax doorasho ah aysan markaa gudoomiye amaba guddi usan u noqon doonin oo deegaanada ka dhacda. sidoo kale waxaa soo baxayay warar kale oo sheegaya in shariif xasan sheekh aadan uu xilka kororsan doono, laakiin taasi haba yaraatee waxay noqotay mid aan waxba ka jirin maadaama uu aqbalay codsiga dowladda iyo inuu si isafgarad uu ku jiro in xilka ugu tago. waa arrin niyadjab ku ah Puntland, Galmudug iyo sidoo kale Jubbaland maadaama ay dhinacyadaas samaysteen isbahaysi amaba xisbi soo horjeeda dhinaca dowladda dhexe ee Soomaaliya kadib kulankoodii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland State. haddaba dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ay hogaamiyaan madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre ayaa waxay guul weyn ka gaareen dhinaca maamul goboleedyada iyo cadaadiskii ugu imaanayay maadaama ay ugu dambeyntii ay qasbeen in ay kala jajabiyaan oo shariif xasan ay xilka ka tuuraan, halka ay sidoo kale isku dayi doonaan in ay maamulada kale ay markaa gaaraan oo ay siyaasad midaysan oo dowladda dhexe ee Soomaaliya hoos tagta ay guud ahaanba Soomaaliya ay ka hirgeliyaan. madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa dhawaatan waxa uu sheegay in maamul goboleedyadu ay qasab ku tahay in ay ictiraafaan dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ay markaasi dowladda dhexe u daayaan go'aamada iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed, halkii ay maamul goboleedyadu ayagu isku aqoonsan lahaayeen inay yihiin sida dowlad dhexe oo gaari kara go'aamo rasmiya oo ama heshiisyo rasmiya la gaari kara dalalka kale, taas oo ay maamul goboleedyadu aada ugu caroodeen. madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ayaa si weyn uga soo horjeeday faragelin ay sheegeen in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ku hayeen maamulka koonfur galbeed oo markaasi cadaadiskaas ugu dambeynna uu keenay in shariif xasan sheekh aadan uu ku baxo. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo maanta ka hadlayay shirka wasiirada amniga 4 maamul goboleed oo ka furmay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in hawsha amniga ay lahayd dowladda federaalka Soomaaliya balse meel iska dhigtay taas bedelkeedana ay ku mashquulsho buu yiri burburinta dalka iyo carqaladeynta. Axmed Madoobe ayaa sheegay in dowlad goboleedyada sida ay u kala muhiimsan yihiin ay dhinaca amniga howlgallada u qaybsan doonaan, taasina ay ku qasabtay markii ay wax gacana ka waayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya. wuxuu ku eedeeyay dowladda federaalk ee Soomaaliya inay ku mashquulsan tahay burburinta maamuladii la soo dhisay muddada dheer iyo xasilooni darrada dalka oo dhan ku baahda, taas oo laga arko sida ay dabka ugu shidayaan buu yiri koonfur galbeed oo hadda madaxweynihii maamulkaasi shariif xasan sheekh aadan uu iscasilay. waxaa aada loo xasuustaa in marka khilaaf uu soo kala dhexgalo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay Ethiopia soo kala dhexgali jirtay, laakiin madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo isaga ayaaba saaxiib dhow ka dhigtay Ethiopia waxaana uu kula heshiiyey in aysan soo faragelin arrimaha Soomaaliya oo ay iska ilaaliso in ay si gaar ah maamul goboleedyada ay u casuuto ama ay kala hadasho arrinta masiirka ummadda Soomaaliyeed, waana tan koobaad ay ugu adkaatay madaxda maamul goboleedyada. sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya waxa ay ku qasbi doontaa madaxda maamulada kale inay miiska wada hadalka ay soo fariistaan, gaar ahaan madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo madaxweynaha maamulka Puntland, kuwaas oo jeediya hadallo runtii lidi ku ah dowladda dhexe ee Soomaaliya. dadaalada dowladda Soomaaliya ay ku doonayso inay ku soo celiso kala dambeyntii isla mar ahaantana dalka si siman kheyraadka lagu qaybsado oo dowladdu ay si midaysan canshuuraadka ugu qaado una gasho heshiisyada caalamiga ah ay hadda ka shaqeynaysaa dowladda dhexe ee Soomaaliya, waana midda ay sida rasmiga uga soo horjeedaan maamul goboleedyadu. gaar ahaan Jubbaland dhaqaalaha ka soo xarooda Jubbaland oo kaliya ayaa maamusha, halka Puntland sida si lamid ay iyaga sameeyaan. dowladda dhexe ee Soomaaliya oo dhowr mar isku dayday arrimaha in ay wax ka qabatana waxa ay markaasi kala kulantay mucaaradnimo iyo in maamul goboleedyada ay arrimaha oo dhan ay diidaan.
si kastaba madaxda maamul goboleedyada ayaa hadda u muuqda inay kala baxayaan. Shariif Xasan waa uu baxay, madaxweynihii Hirshabelle dowladda ayuu la heshiiyey, madaxweynaha maamulka Galmudug caga badan kuma taagna oo waxaa suuragal ah in isagaba xilkiisa loo soo socdo. madaxweynaha Puntland doorasho ayaa ku soo socota isagana, halka madaxweynaha maamulka Jubbaland isagana ay sidoo kale doorasho ku soo socoto. waxaa suuragal ah in dowladdu ay dhammaan maamulada ay keensato madax kale iyada ay la shaqeyn karto, ama ay suuragal tahay in ay si rasmiya isku fahmaan, si siyaasad midaysan ay u yeeshaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. iscasilaada Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaanan weli wax warara ama wax falcelina aysan ka sameynin shakhsiyaadka ha ahaadaan mucaarad ama muxaafad ama dowladda ha ka tirsanaadaan ama kuwa kale ha ahaadaan. haddaba shabakada wararka ee Warqaad Tube oo mar walba idiin soo gudbisa wararka iyo warbixinada la xiriira arrimaha Soomaaliya iyo wararka caalamka ayaa daawadayaal idiin soo gudbin doonta wararka guud arrimaha la xiriira haddii ay bahay noo saamaxo oo aynu barnaamijyadeena daba ku soo qaadan doona. laakiin waxaan dib idiin ugu celinayaa saaxiibkay Mukhtaar iyo wararka kale iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. mahadsanid Cabdullaahi. waxaa isna magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay markii uu iscasilay madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan isna shaaciyey inuu xilka iska casilay afhayeenkii golaha iskaashiga dowlad goboleedyada dalka Cabdullaahi Sheekh Xasan. Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa waxa uu sidoo kale ahaa wasiirka dastuurka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana shir jaraa'id oo ku qabtay magaaladaasi oo si rasmi ah ugu shaaciyey in uu iska casilay xilka afhayeennimada ee dowlad goboleedyada. عليا marka hore madaxweynihii hore Koonfur Galbeed hanka geesinimada ahna isla markaasna ahaa gudoomiyihii golaha iskaashiga dowlad goboleedyada hanka geesinimada lagu qaatay ayaan ugu hambaleynayaa. sidoo kale waxaan u rajeynayaa madaxweynaha cusub ee kumeel gaarka ahna gudoomiyaha baarlamaanka sidoo kale in Ilaahay u fududeeyo oo u shaqeeyo iskaada. inta kadib waxaan u tihiin madaxweyne Shariif Xasan wuxuu ahaa gudoomiyihii golaha iskaashiga xilligan, maadaama asagu iska casilay xilkii gudoomiyenimada aniguna waxaan iska casilay saacaddan ka bilaabato afhayeennimadii golaha. waa garan kartaan oo markaad xisbi ka tirsan xisbigaagu marka uu xisbi kale la wareego waxaa mas-uuliyadda markasta waxay ku wareegaysaa xisbiga kale. marka afhayeenka maadaama gudoomiyihii is casilay aniguna waxaan iska casilay afhayeennimada. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi. qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka arrimaha siyaasadda ayaynu isla soo gaarnay daawadayaal. Imaaraadka Carabtu waxa uu si rasmi ah u shaaciyey in saldhigga militari uu ka dhisanayo magaalada Berbera oo si rasmi ah u furi doono bisha Juun ee sanadka soo socda. saldhiggan ayaa howlaha uu qabanayo waxaa ka mid ah in lagu xiro qalab lagu ilaalin karo marinka Bab al-Mandab, taas oo ah waddo ay maraan maraakiibta shidaalka iyo kuwa xamuulka ee ku sii jeeda kanaalka Suez. fariisimaha Imaaraadka ee Somaliland iyo Eritrea waxa ay muhiim u yihiin taageerida isbahaysiga uu hogaamiye Sacuudiga ee dagaalka kula jira kooxda Xuutiyiinta ee mucaaradka ku ah dowladda Yemen. saldhigga militariga Imaaraadka Carabta waxa ay ka caawin doonaan gobolka ka hortagida burcadbadeeda, kalluumeysiga sharci darrada ah iyo in lagu daadiyo qashinka warshadaha xeebaheena, ayuu yiri Baasha Cawil Cumar. saldhiggan ayaa baaxadiisu waxay gaaraysaa 42 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana uu leeyahay meel ay ku xiran karaan maraakiibta dagaalka ayna ka soo degi karaan diyaaradaha. daawadayaal, intaa waxaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka arrimaha siyaasadda Warqaad. intaynu mid lamid dib u kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo. ku soo dhawow Warqaad Press. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar, siina share garee. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe saar si aad u hesho muuqaallo cusub. fikirkaadana noogu soo gudbi qaybta commentiga. aad baad u mahadsantahay.